بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وادي السلام يا كسور دوادا برنامجكeenii sirta waxbarashada waxay noo soo socotay silsiladii taxanaha ahayd ee bilahana ahayd ee noogu talagalay inaynu bil walba soo bandhigno fursadaha waxbarasho ee ka banaan dunida marka koobaad waxaan u hambaleynayaa ardaydii bishii hore ka faa'iideysatay ardayda kala duwan ee la soo xiriiday ardayda kala duwan ee shahaadooyinka caalamiga ka qaatay jaamacadaha dunida ugu waaweyn bishan waxaynu joognaa waa April waa bishii afraad ee sanadka 2020 maanta waxaan idin soo bandhigayaa adiga oo gurigaaga jooga lacagna aanay ka bixin fursadaha waxbarasho ee aad ka faa'iideysan karto Soomaalidu waxa ay wax ku bartaan waa luqadda Carabiga iyo luqadda Ingiriiska marka hore waxaan horeysiinayaa Carabiga kadibna waxaan ku xigsiin doonaa Ingiriiska bilowna koorsada Carabiga waxaan ugu horeysiinayaa koorska loo yaqaano تخصص الإعداد الوظيفي وكورس مهم oo socon doona bilaabmi doona bishan April socon doona ilaa iyo 12 usbuuc oo soo socda waxa uu ka dhisi doonaa qofka shaqaalaha ah ee meel ka shaqeeya ama qofka cusub ee raba inuu meel u shaqo tago xirfadaha asaasiga ee loo baahan yahay inuu qofkaasi yaqaano waxaana kooraska ka baran doontaa manasada ama website-ka loo yaqaano idraak kooraska labada Carabiga ku baxaya ee bishan ka faa'iideysan karto waxa loo yaqaana التصميم الميكانيكي في هندسة الربوت وقابك حاجة ميكانيك أهان أما ميكانيكال أهان سيدا الله سميه روبوتيسكا إيميكا أدوية لغا استعماله سيدا إنو ودوغنا إيميكا روبوتكو وحاوهيا شق مهمة وحانا الله فيليا إن بلا آدنك وكنا سندونو شغوين فرابضانا إيميكا قبطان marka luqadda Carabiga hadii aad ku fiican tahay bisha April manasada ama website-ka rawaaq waxay ku furaysaa chance aad ka faa'iideysan karto in aad ku barato kooraska loo yaqaano التصميم الميكانيكي في هندسة الروبوت هذا اللغة العربية كوبا حياة بيش وحلا لو يقنا ألف باء الصحة والمرض وبيسكسك أما وبلوجا عافماتك يحنونك سيدين وذوقنا يمك أديدو وحين كوشرنا وقت أذك وحنونك كورونا فيروس وقاري أديدي ميل والبا كان اللغة العربية هدي أتقرنا يسوي واحد تفي عنو فائدة سنتها عافماتك يحنونك كورس كبرية وأي بحنا صمنا صدا أما ويب سايتك إدراك أنت لو وجدت شرا بيش أفراد بيشان كوبا حيا اللغة العربية waxa loo yaqaan القانون وريادة الأعمال hadii mar aad ku fikraysid inaad noqoto ganacsade ama qof fikir hayo ama qof fikrad maskaxdiisa ay ka guuxaysa aad ahayd oo raba inuu businessman noqdo bishan waxa aad si fiican uga faa'iideysan kartaa kooraska القانون وريادة الأعمال oo ay bixinayaan professors waaweyn maalintii wuxuu bilowday shalay ahayd ee 1 April min sadda rawaaq ilaa hadana waa isdiiwaan gelin kartaa hadii aynu gudubno koorasada ku baxaya luqadda Ingiriiska bishii hore ee saddexaad waxa aynu ka soo faa'iideysanay arday badanna ay soo barteen koorasyo kala duwan oo ku baxaya luqadda Ingiriiska bishan afraad waxaad iyadna ka faa'iideysan kartaa koorasyo kale oo muhiim ah oo baxaya inta aynu ku guda jirno bisha April kooraska ugu muhiimsan ee bishan aad dhigan karto wax weeyaan waa kooras ka dhisaya xirfadaha luqadda Ingiriiska waliba waxa weeyaan waa seminar soconaya hal bil markii hore ee lacagta ahaa waxa lagu dhigan jiray 1,000 ilaa 2,000 dollar inta u dhaxaysa macallin loo yaqaan Chris Americo ayaa dhigay bishan waa seminar waxaanu kaga duwan yahay koorsada kale aynu soo qaadanay kooraskan casharada lama download gareysan karo ama laguma talagelin hadii uu ku dhaafo maalin inaad la soo degto sida awgeed waxa uu ka rabaa macallinku inaad maalin walba 2 saacadood oo wax kale aanad qabanin aad kooraska aad ka faa'iideysato shuruudaha uu ku xidheeyna waxa kamid ah inaad soo diyaarsato laptop-kaaga imika koorasyada hore aynu ka soo sheekayno dhan waad ku isticmaali kartaa iyaga mobilka laakiin kan Englishka macallinku wuxuu ku talagalay only qofkii computer ama laptop ku isticmaalaya marka waa seminaarka fariiga bishaasi April ayuu soconaya maalin hadduu ku dhaafana lagama soo celin karayo marka waxa muhiim ah marka aad isdiiwaan geliso in aad hore u socoto koorasyada kale ee soo haray bishan ee ku baxaya luqadda Ingiriisku dhamaantood waa faculty-ga IT-da waan ka xumahay doorkan in aanay jaamacaduhu ama bishan in aanay jaamacaduhu aanay bixinin koorasyo ku saabsan fiilalka kale haddii aynu mid iyo laba ka soo qaadano koorasyada IT-ga muhiimka bishan baxaya kooraska ugu horeeya waxa la yiraahdaa magaciisa waa Google Cloud Platform Fundamentals Core Infrastructure waa kooras aad u muhiim ah oo loogu talagalay inaad ku fahanto barnaamijka loo yaqaano Google Cloud-ka waxaad ka faa'iideysan kartaa bishan April inta ay socoto kooraska kale ee signa IT-da ku saabsan waa Windows 10 Security Features barnaamijka aynu wada isticmaalnay Windows 10ka ugu dambeeyay imika featureskiisa ayaad baran doontaa iyo nidaamka uu shaqeeyo kooraska ugu dambeeyay ee April aad ka faa'iideysan karto hadii IT-da aad xiisayso wax weeyaan waa Introduction to Virtual Reality
virtual reality-ga barnaamijka isagana loo yaqaano programkaas waxa loogu talagalay qofka aan virtual reality-ga wax badan aan ka aqoon ee uu imika ku cusub yahay in uu basicskiisa uu barto oo ka faa'iideysto halkaas ay noogu egtay koorsada bishan April aad ka faa'iideysan karto adigoo gurigaaga jooga lacagina aan ka bixinin waliba gaar ahaan maalimaha fasaxa leeyahay wax fiican waqtiga in laga faa'iideeyo channelkan waxaynu ugu talagalay marka aanu aan asaasiyay fikirkiisu waxa uu ahaa inaynu helo bal waxbarasho bilaash oo qof walba gurigiisa ku gaadha marka channelkeena YouTube inta daafa fasaxa lagu jiro qof walba waxaan ka codsanayaa saaxiibka inaad ugu yeedho inaad wax wada barataan koorsadan maanta aynu soo bandhignay iyo kuwii ka horeeyayba dhammaantood wada bilaash mid xataa $1 uu kaaga baxay ma jiro dhammaantoodna waxa uu kaaga baahan keliyata mobilkaaga ama inaad computer haysato si aad uga faa'iideysato anna waxaan ugu talagalay inkastoo waqti badan iga baxo inta aan kolba soo ururiyo marna aan carabi ku raadiyo marna aan english ku raadiyo haddana ujeedkaygu waxa weeyaan inuu sadaqa jaariya noqdo oo cilmi yuntafacu bihi qof waxba sadaqadaystay aniguna aan sadaqadaysto cilmiga walaalahay ay baranayaan aad iyo aad baan idin salaamayaa bil walbana balanteenu waxa weeyaan marka ay bilaabanayso in koorsada bilaashka aan idin soo bandhigo qofkii ka faa'iideysanaya diyaar u ah luqadda carabiga iyo luqadda ingiriisigaba aan idin ku soo bandhigo